وكا أركيسو أركيسو شوقي وحلوق شوي ninkan la leeyahay waxbuu maayir yahayna uu noo yimi ilmu geed buu naga qaaday lamaba mooday ninba nin naga mas'uulay iyo nin Soomaaliland u dhashay toone haduun Cabdikariin ninka la yiraahdo inuu yimaado isagoo maayir hayn inuu yimaado doorina maayirku intuu yimi buu iska noqday intuu soo waagay buu iska tagay lixdeeda awlaadaha xalay habeen hore dhaxan bay seexdeen caawna dhaxantuun baan sugaysaa ilaahay xaqiisa aanu caawimo ka sugaynaa qaar ka mid ah dadka degan xaafadda Cakaara degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadii shalay toole gubatay oo u badnaa dad danyar isla markaa la sheegay in ilaa dhowr iyo 10 qoys guryahooda ay gubteen inkastoo aanay cidi waxba ku dhiman laakiin se waxa halkaas ku baaba'day hanti badan oo dadka qaar ay sheegay in lacag qadarkeedu gaadhaysa $16,000 ay ku gubatay halkii oday ka mid ah dadka deegaanka isla markaana halkaasi gubtay ku jiray uu sheegay $15,000 hoosta la guriga gubtay gabar ka mid dadkaasi ayaa iyaduna sheegtay in lacag $1,000 ahayd ay ka gubatay alaab hanti fara badan halkaasi ay ku shufbashay hooyooyinkii dadka halka deganaa ayaa ilaa xalay u hooyanayay xaafadaha iyagoo barakaca isla markaana sheegay haatan inaanay haysanin wax gurmada iyo cid soo gaadhay marka laga tago hay'adda kaydka afooyinka ay sheegeen kaydka raashika sidoo kale hortaga afooyinku ay sheegeen raashin ay u keentay waxay sheegeen ay tabayaan gacantii meeyarka caasimada Hargeysa iyagoo si weyn u sheegeen ay u tabayaan meeyar hore Mooge oo ay sheegeen xaaladahan oo kale marka ay timaado inuu danyarta la qaybsan jiray isla markaana deeqa la siin jiray dadkan oo si adag u hadlay isla markaana qaar ka mid ay baaq u direen dowladda deegaanka Itoobiya oo ka mid ahaa mid ka mid dadka deegaankaas ka soo jeeda saacada degan dadka halkan ka mid ah ayaa baaq u diray madaxweyne Cagjar iyo sidoo kale cid walba oo deegaankiisa iyo sidoo kale dadka reer Soomaaliya in arintan looga soo gurmado waxa ay yiraahdeen dab baan qabsaday markii labaad markii hore waanu gurmanay Ilaah baa noo gurmaday waanu dabaynay markii labaadna wuu qabsaday waxna gubiyana ma garanayno ilaa cisho u dhaxeeyay ka hore ka dambe waxa u dhaxeeyay ilaa 30 cisho u dhaxeeyay wax gurmada bay diibaadeen wax gurmada caawinayno ma iman kolkii hore kolka dambana gurmadkii noo yimid waxba uu ka soo gaari waa dariiqay male meeshu waa barjeex meel laga soo galay meel lagu baxmidna male waxaan waxa ku gurtay ilaa 12 guri baa ku gubtay sababtana aanu bay iga kacday anigu waxaan ahay waxaan doonayaa inaan ka hadlo anigu waxaan ahay nin xidida oo meesha deganaa sababta marka waxa u jeedaa gurigaaga hor gubtay gurigayga mar walba hor gubanayay nin xidida meesha degan baan ahaa dhulkana waxba kuma lahayn waxaan halkan kala hadlayaa dhamaan dadka ogaadinaya jooga gaar ahaan madaxweyne Mustafa ugaaska Cabdiraxmaan baan la hadlayaa in la caawiyo sibaan ugu dhacday aanu ne ogaadanahay hore dhagax buura ugaaskan doonay in noo kaco waas Cabdiraxmaan waxaan doonay Mustafa Cagjar in cali urur ina Cagjar dhamaan dadka qurba joogta ah reer Canada caruur adeeraha Ingiriiska jooga oo ilma oo la yiraahdo Cabdullaahi ilma Cabdullaahi laba inaan ilma Cabdullaahi Arab waxaan doonayaa kuwa Canada jooga oo ilma Xuseen Gacallow cibaado Xuseen Gacallow iyo waxa la wixii Canada jooga inay caawiyaan musiibadaas nagu dhacday hal shay aan noogama bixin waxaan doonayaa TikTok-ka u weyn la yiraahdo ilka case inuu isna nacaawiyo waxaan doonayaa inay noo kacaan wixii kuumada inoo kacaan oo ay caawiyaan musiiba nagu dhacday waxaan doonayaa oo kale dadka la shaqeynaya Soomaaliland ee farmasiyada leh Farxaan Liibaan leh Salaamaan leh Alaamin leh Tasliim leh Tawakkal leh Noofa leh Sonfarma leh dadka la shaqeynaya iyaguna dadkii farmasiyada lahaa Shaafici leh ee caawiyaan musiiba nagu dhacday wax noo baxay ma jiro dad iyo dunyo dadkii baa nooga baxay wax dunyo nooga baxay ma jirto musiibada nagu dhacday waxaan ku galaaftay oo gurigayga sabab noqday 7 qoys oo Soomaaliland oo kale yaan sababay waxaan leeyahay madaxweyne Mustafa waxaad u cadaysatay boqolkiiba sababay dabkaga waxa sababay wax alla wax laydho ku xidhnaa ma jiray laydhka horaan iska jaray oo ka shakiyay mar saddex markii u horeysay aan gubanay dabku soo qabsaday guriga uu ka bilaabaya marka laydhka iska jaray markii labaadna laydhba noogu jiray waa la gubay
markii saddexaadna saasaan u shufbeelay labada mar ee horena was anagu bas yar habeynay lacag 15,000 oo konton ka dhibanta dollar way iga gubatay alaab inaan u horeeyay oo 15,000 oo konton la ha iga gubatay oo dollar ha way dadabisku kolkay baabada meeshu inoo yimid meel ka soo galan baa waayay meel xitaa meeshan lix madaxweyne soo maray wax kala rarayo wax u imanaya wax dan kale ma arkaysid dhibaatan ugu sida wadooyin male waxba male waa dad cadiban iyaga kolkaan eega aan la yaababa way dawladda hoose marka sida kol guriyo damisku meel alla meel soo maray haduu waayo waxba lama dami karo dawladda hoose waxba nooma wax alla waxay noo qabataa ma jirto maayirku noo yimid laakiin raashin yaro raashina yaa la keenay ma afooyinkana siisay dawladda hoose wali waxba kama hayno maayirku nooma imanin laakiin kuma soo noqon noo yimid laakiin waxba warbixin dambe nooma soo celinin waxa jirta oo kale waxa doonayna Cabdikariin ninka la ilaahay inuu yimaado aha isagoo maayir hayn inuu yimaado doonayna madaxweynuhu istaadiyonka soo taago meesha ishiisa ku arko yaan doonayna madaxweyne Ciro oo halka ka salaamay isagana dawladda Soomaaliya indhaha ka qarsata ma 12 qoys oo halkan ku gurtay xalaalkeedu hoyatay xalay waxaan u hoynay daarad dad kale leeyahay baan u hoynay xalay iyo habeen hore badbaadada dad kale leeyahay baan u hoynay qofka meel baa la geeyay waka arkayso joogii wax loogu shubayay wax alla waxaan haynaa caawana meel aan u hoynay ma haysano dadka muxsiniinta dadka mucaawiniinta waxaan ka codsanaynaa inay nolol soo degdegaan waxay noo heli karaan waxaan nahay dadka masiibada la kulantay anu waxaan hay hooyo 6 caruur haysatay 6deeda awlaadaha xalay habeen hore dhaxan bay seexdeen caawana dhaxantoon baan sugaysaa ninkan la leeyahay waxbuu maayir yahayna uu noo yimid mugeed buu naga qaaday lamaba moodaynin banin naga masuulay iyo nin Soomaaliland u dhashay toone una yago mugeed buu naga qaaday uu naga noqday noomanu imanin ninka Cabdikariin Axmed Mooge ummadda Soomaaliland waxbuu qaban jiray wuu iman jiray uu garab taagnaan jiray waxaad moodaysay maxay tahay hooyo walba nin inay dhashay baad moodaysay maxay tahay waxaan leeyahay madaxweynaha Soomaaliland sharafta leh waxaan leeyahay 6 awlaadan haysta baraan la galaa ma jirto habeenkii xalay dhaxan baa carruurtayga laysay caawina wayna sugaysaa madaxweyne waxaan leeyahay madaxweyne naga soo gaadho noo soo gurmo maxay tahay waxaan nahay maatidaadii madaxweyne si degdeg noogu soo gurmo barta banaanaan taaganahay ayaa baradaydu ka dhisnayd haddana meel alla meelaan geeyo awlaadaydi ma hayaanu kun waxa weeyaan anaga nasiibaan nagu dhacday waxaan deganahay xaafadda Cakaara anigu kiroolaan ahaa ummadii Ilaahay gurigoodii baa ka wala gubatay hantidii baa naga gubatay anigu intii alaabaan haystay lacagteeda haystay way iga gubatay maxay ahayd inantaydii baa ku dhex dhiman gaadhay iyo inan yaro dawahay ayaa ku dhex dhiman gaadhay guriga hurgubtaan galay kiroolaan ahaa anu kaygu ahaa waan ka maqnaa masalaha ku maqnaa dawladda waxaan leenahay Ilaahay waa wax bixiye dibad fadhi weeyaan dadkii guryaha lahaa anu kiroolaan ka ahaa laakiin dadkii guryaha lahaa waxa weeyaan inay la wala fadhiyaan in banaanada wala taagan yihiin Ilaahay baa caawimay dadka la soo caawiyo dawladda hoosena waa calaameynayna iyad waxba uma tarin maayirku intuu yimid buu iska noqday intuu soo waagay buu iska tagay xalaal wuxuu noo keenay ma jirto qolada aafada maxaa waxay qolada qaranka aafada noo keentay in yaro raashina ayaa noo keentay inta mooyaan wax kale kama hayno waxaan hubino ma haysano waxaan gashano ma haysano waxaan xidhano ma haysano maxay ahayd ummadii hantidoodii baa ka wala gubatay buugal bay wala haayeen carruurtoodii bannaankay wala taageen reeraha loo wala geeyay aniguna waxaan qof kiroola ah oo hantiyayga gubatay aniga $1 bay iga gubtaan ku shaqaysanayay maxay ahayd wax kale ma haysano awlaadii badhnaga guban gaadhay mar haddaan imka laakiin waxba lagu alxamdulillah laakiin waan dawladeeda waxaan leenahay waxana loo qabto dawladeeda waxaan leenahay waxana loo qabto muwaadiniin baan Soomaaliland oo cilooyin fadhiya oo waxba loo qabanay 15 sano kira galayay waxbana looma qabto Ilaahay ma hadii weeyaan hadii aanan gubanin adduunyo waxba looma yaadina way gubatay meesha imaka 25 sanadood waan deganay balayay baanu ka soo guurno dadkii qaxoontiga ka soo guuraan ahay meeshan dawladda Ilaahay baa noo qoray oo na dajiyay waanu iska nabad qabnay waxaanu yaban karaynina waanu iska yabanay jeengad iyo buul iyo waanu iska yabanay halka laba bas baa igu dhisnaayo
qurux badan oo baan igu dhisnaa jinkada yar iyo inta jaajuurka isku jirtana waan dhistay alxamdulillah waan iska nabad qabnaa dad iska caafimaad qabaan hayno ilaahay arsaaqadiisu way noo badnay maanta se 25 sano kama yara maanta se ilaahay masiibadan meel naga keenay ninka aqalkiisu baa 2 cisho shan la baqtiyay shadan dhawaytana soo dabdamista naga raagto waa naga de isla wada aafownay inta balayeli baan ka soo wada guurnay jaarun baan wada ahayn dad intan kuwa waxaan nahay inuu islaamnimo u wada dagayo ku walaaloobay oo cid walba iska leh isagana inaan reerka aan bay wada joogaan nin wuxuu iska noqdon reerka ah marka ilaahay baa la baryaa ilaahay baa risqa bixiya ilaahay xaqiisa aanu caawimo ka sugayna wixii wax nagu tarana ilaahay oo noo soo dir ee islaama ilaahay oo noo soo dir gaala waxay iyo gaala ma dhex joogna ilaahay islaamka iyaga noo soo dir baan ku ducaysanayna waxana ilaahay qalbiga waa xashiisha ilaahay nooga reeb kula daan dad naga gelin alxamdulillah marka ilaahay khaatumada ay noo hagaajiyo arsaaqadana ilaahay baa laga helaa ilaahay cid ku soo dirana waa laga helaa in raashinana waa naloo keenay hay'adda afooyinka noo keentay raashin yaroon daqiiqun ku jirin ayaa madaxweyne iyo cidina caawinaysa muslimaba waan baahna wanaga cidada fadhina ya halkaas aanu aqal wada ergisaabaan kala wada seexanay wax maray nooma bixin wax weeli nooma bixin tawaydinka arkaya mashaqada ya nin fadhigaaga arkaya looma sara kaco marka deyntaad na gaarsiin kartaan na gaarsiin anaga waydinka na arkaya waxaan walaalayaal waxa oo naanahay anagu dad islaam oo cakaaro ku gubtay oo dhowr iyo 10 qoys ah waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliland waliba dawladda hoose in degdeg la noo soo gaadho dadamiska mooyaane cid wax naga qortay iyo cid noo timitoona ma jirto waxaan leenahay halka halana soo gaadho dawladda hoose ninka imaka qabsaday noomanu imina nagamanu soo agwareegin inaan kale oo yaa noo yimi oo habeenkii dadka naga baqtiinaya ku jiray naguma soo noqonin waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa madax iyo mijaba in laga soo gaadho masiibada nagu dhacday waxa weeye dad naga dhimanin ma waxa naga dhimatay waxaan ti ah waxaanu leenahay dawladda hoose oo nu leenahay Cabdikariin markii uu haystay Cabdikariin de ummadda Soomaaliyeed ee Soomaaliland wuu isdhinac taaga jiray nin walaalkayon jecelahay buu ahaa ninka laakiin magaalada haysta cidna uma gargaar cidna uma yimaadee ha ka soo muuqdo baanu leenahay meesha ha ka soo muuqdo madaxweynaha wixii maxay toolay hanti haysta waxaan leenahay degdeg noo soo gaaro wixii muslimiina meesha anagu dadbadii aanu nahay oo caruurahayagii waxa weeye hooyadooda imika gaari lagu sido meel la dhigala iyo anigu degdegaya waxa leeyahay degdeg noo soo gaaro degdeg